بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مقاعد وحالي هذا نبضون عثمان معلن آذن كان سوج هذا ديغان ككفر قلبي. وحان ربا أن كده هلا بكلمة عن كير هذا دور كلمة عن كده قيانا دي حاجة الدامة دي اللي جوية دي إيو مسوق كده عيمشاس aan rabaa inaan ka hadlo markaad Soomaaliyeed waxaad ogtihiin maamul goboleedyada la dhisay oo hadda galmudug ugu dambeysay galmudug dadkii deegaanka ahay cidii ku badneed cidii ku yareed waxa wax looga qaybiyay si daacad ah oo ay musuqmaasuq ay ku jirin lugooyo ay ku jirin qayaano iyo inkiraad ay ku jirin wax looga qaybiyay hiir shabeelle 24 beelooda lagu saleeyay inkee waxa ka dhacday dadkii deganaay oo dawladda dhex markay burburtay dadkii deganay oo qabaa'ilada xataa ku qaaranahay xaqooda inay soo doonteen oo si siman oo sharaf leh ay u heleen xaqooda marka koonfur galbeed waxay inkirtay beel la yiraahdo jecel oo si siman u degto deegaamada aan soo sheegi doono oo ay kamid tahay afgooye gurdaan balad amiin walaweyn jiibsatooy كبهرك بريوين لاجا جرسمعي جماعة دانتا قرطة بيلي بالا يقدمار إيو قوم الله وأحد نكاس وأحده ماشي اللي يرا بردالة لفة قوم الله العدو مركا ضد انت سيس من أدقن أياي إنكرين maamul beenaadka koonfur galbeed ay inkireen marka waxaan rabnaa dawladda Soomaaliya in la hadalno dalka wuxuu ku dhisan yahay federaal dawladay dalka waa federaal dalku waa federaal federaalna waxa waaye waxaan isku darsanno annaga marka ka gaal jecel ahaan go'aan aan qaadanay waa nuu filayahay deegaankayna waa nuu filayahay dhaqaalahayna waa nuu filayahay wiilkayna waxaan rabnaa marka in aan isku tashanno maamul beenaadkaas markan waxaan u sheegaynaa in ay taaka annaga aan leenahay ay ku soo xidgudbin ayna ku soo xidgudbi karin ay ku tashtaan ay maalkooda iyo gooskooda isbaraan maalkooda iyo gooskooda in isbaraan sidaad ogtihiin ama facebookida aad ka arkayseen ninka sheeganayo gudoomiye isku sheega wala weyn ciidamadiisi inuu yiri banaanbaxa oo caay gaal jecel oo caay xildhibaanadaas oo beeshaas caay inuu yiri waad maqlayseen waxaa kaloo siiri in la caayo gaal jecel oo la caayo deegaan mid liiraho la xaqira ana wakiil uga lafta gareen waad maqlayseen marka taad ka eedeen aniga wakiil uga hooyir waa isku ognahay madaxweynahayda qeyr Allah siiya ana wakiil uga hooyir waa maqsan waataas waxaa kaloo idin sheegaa koonfur galbeed hadii ciidan iyo maxaa yeelo ay wax in isku aadeen ay u maleynayso maamul u maleynay taaka intaas asleeyahay oo gaal jecel asleeyahay in isku soo xududbin shirira socdo waxaan soo sheegi doonaa wadada maalinka ayaamaha iyo taariikhda saacada aan waxa waaye xaduudahayna aan xirin doono hadii alle idmo insha Allah taas waxa kale oo sheegaa koonfur galbeeday waxaad ogaataa ilmo dugaag waxa uu ragnimo badan libaaxa uu ragnimo badan nin ilmo dugaag oo libaax ka ragnimo badan ma jiro libaaxa ilmihiis in la soo qaataa suuqo shabaq lagu ridaa cashuur la dhaxad halo dalxiis hala fiirsado hala dalxiis hala dalxiis halo dalxiis 2003 lagu fiirsada waad ogtiin marka hadii alle idmo waxa waaye dawladii dhexe hadii adinka aad istiriheen oo u dhaqanteen sidii jabhad ahaan aad u dhaqanteen sidii arare ahaan war dadkan waxa waaye dadkii ay ka soo dadka aswaqo mana UEC ka soo dhaxbaxday dadka UEC dad cadaalad darro tabanayo waa UEC dadkaanay la mid ah dad cadaalad darro tabanayo waa haddaad markii jabhad aad noqoteen oo deegaamada dadkii cashuurta iyo caanaha cashuurta iyo caanaha iyo cidka lagu xisaabtama deegaankaas dad intaas aan soo sheegay dadka deganaa keena ugu badan saas hal la ogaado tan xigto meesha la yiraahdo wala weyn dawladii hore ee Soomaaliya waa u dalxiis jireen leega iyo wala weyn waa u dalxiis jireen waxa loo dalxiis jiray caanay ahaayeen caana dooro caana laga ma lisa
dooro caana lagama lisay caanaha loo soo dalxiisi jiray dadka keeni jiray waa taqaaniin waa beesha gaal jecel waaya lidin qarin maayo waad ogtiin adinka kow magaca walaweyn leedahay walaweyn laba xaafadood iska bilaawday xudurweyn ee malab loo ka bilaawday xudurweyn wuxuu ahay nin gaal jecel ah malablana wuxuu ahay nin jareer weyn ah taariikhdan sidaas loo ogaado waxa marka aan leeyahay koonfur galbeed in dhada roob ay mudin war dhada roob ha mudino annaga gaal jecelaan nahay waa isku tashanaynaa tilaaba annaga aan leenahay hawaai ka damac iska soo gelin tilaaba annaga aan leenahay damac iska soo gelin waxaan leenahay annagu haddii alle idmo waa tashanaynaa waana tashan doonaa hadda ka horne hadalkaas aan ku hadlaaya waxaa ku hadlay xildhibaan aadan cabdi faarax kala dire warkiisi oo reer gaal jecel ay daba joogaan way oo daba socdaan oo taageerayaan oo garab siinayaan oo taageerayaan way warka aan ku hadlaayo waxa marka aan rabaa koonfur galbeed haddii xaqii beesha ay lahayd laga waay oo ad waxa waay inkiraad iyo qiyaana iyo masuq kii ugu weynaa ad samaysay waxaan ku leeyahay tilaaba asgaal jecel leeyahay inaan ku soo xidgudbi karin adna ku soo xidgudbi karin anna tashan doono maalkayna iyo gooskayna aan isbari doono wiilkayna iyo xoogayna aan isbari doono dhaqaalahayna aan ku xisaabtami doono taakada annaga aan deganahayna aan goosan doono dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaa meel intaas oo musuqmaasuq ay ka jirta oo ogtihiin oo taqaaniin oo aad ogtihiin oo dadkii Soomaaliya odayaashii Soomaaliya oo joogi jirtay dowladda Soomaaliya ka soo qayb qaadatay waa joogan dalkii hadda iyo taariikhda hadda ay ahayd waad ogtihiin beesha inay meeshaas degta lana hakari ha ku bixinina dhaqaalaha ha ku bixinina koonfur galbeed adduunka weynahana waxaan u sheegaa oo Soomaaliya siiya ee dhaqaalaha siiya in beeshaas ay maamulkaas beenaadkaas ay ku bixin dhaqaalaha iskaga bixin oo dadka Soomaaliya midi iskugu dhiibin oo dadka Soomaaliya isu hubeynin oo ay toori iskugu dhiibin oo qori iskugu dhiibin oo isu hubeynin oo dhaqaalahooda aan isku dilin dhiig faraha la soo gelin annaga marka intaas aan u sheegaynaa waxa marka aan sameyn doonaa haddii alle insha Allah shirarkaynana waxa waay isdaba joog ay noqon doonaan haddii Ilaahay raali ka noqdo insha Allah odayaal kale iyo meel kasto aan joogna shirarkaas haddaan dal jirna iyo haddaan dibad jirna afka aan ku hadlaayo waa af gaal jecel hadda ka hor waxa beeshaan gaal jecel ogaaskeeda ogaas Cabdiraxmaan ogaas Cabdullaahi waaye ayadoo hadda ka hor bay dhaba la joogo aan la fadhiisan dadka la fadhiisan aan ku jiray aniga ninkaas dadka la fadhiistay ayaan ku jiray beenta waxay banaan tahay markii aad naftaada ku furinayso saddex wal xataa ogaaska u banaan qaado inta dastuurka la isku celin doono oo xildhibaanada la badin doono wasiir birimo oo in la siin doono in ogaaska malaaqyada meesha jooga deegaan waaye deegaanka intaas la oga baaxdiis intaas ay dhan tahay ay asgaal jecel degan yahay waana la degan yahay hadda dawladda igu horeysa qayaantay in oo ogaaska oo ku soo beeri doono dhaqanka oo koonfur galbeed ku soo beeri doono intiba ma sameyn waad ogtihiin intiba ma sameyn waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya arintaas haddii faraha la gala meelay wax ka qaban karin ay wax gaari doonaan meelay wax ka qaban warkayda hoos u dhihi maay qoraan u leeyahay meelay wax ka qaban karin ay wax gaari doonaan aniga waxaan leeyahay xirigaas dhaxda qabatay ummadaas la qiyaamay oo deegaanka ah oo intaas baaxdeeda ay la eg tahay oo meelahaas kala duwan degta oo tuulooyinkaas aan soo sheegay inta kale waxa waay la mijibaarka oon hadda magacooda aan kor ka haynin oo degta oo la qiyaamay intaas oo qiyaanay intaas oo xayildaami lagu sameeyay hal laga soo jawaab arintaas gudoomiye beenaadka walaweyn waxaan u sheegaa asoo ayta ma aho gaaljeel mali iyo heblo mali lahan maqlay iyo jeesaw ayagoo ayna xildhibaan dawladda federaalka Soomaaliya waa maqlays nin oo xaafad tuulo joog inuu oo caayan nin xildhibaan oo dawladda federaalka Soomaaliya intaas ay ka aamusto sax ma aha hadday raali gali ka bixin waayaan caaydi xildhibaan jeesaw ay caayay hadday raali gali ka bixin waayaan wixii ka yimaado aqabada ay ka qaadan doono taasna waxaan leeyahay gudoomiye beenaadka oo waxaan leeyahay oo walaweyn haddii alle insha Allah shirarka waa badan doonaan isdaba joog ay noqon doonaan go'aanana ka soo bixi doona haddii Ilaahay raali ka noqdo go'aankaas aan beesha gaal jecel ay ku guuri doontaa ayn haddii alle idmo ay ku dhaqmi doontaa qodobana waa loo sameyn doonaa haddii alle insha Allah oo ay ku dhaqantahay haddii Ilaahay raali ka noqdo
saacadda aan xaduudkayna xirinayno oo tallaabadayna xirinayno oo deegaamada anaga alleena aan xirinayno anaga soo sheegi doona haddii ilaahay insha allahu aad iyo aad u mahadsantihiin inta i fiirsanayso iyo inta kale oo dhegaysanayso aad iyo aad u mahadsantihiin haddii alle idmo wixii un kaloo hawl ina waa maqli doontiin haddii almawlaan isdaba joog waay aad iyo aad u mahadsantihiin assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh